heestaydii waa dhimatay loftimeeday heestaydii waa dhimatay aad bardii salaamay subeer iyo ninka odayga mataan on salaamay abti rock salaam adiga mataan waa ninkaan soo wala kornay markaan Sweden nimi 2 sano aan ku weynahay waa radio Tabori sanada waa soo dhigay iskuulka dib loo adu laba nin oo say walaahi meesha isku helay waan idin salaamay laba helbid wariya mataan kantay radio Tabori way isaguna ha Ingiriis ku deganaa laakiin oo inta hore dhammaan Instagram waxaan rabaa inaad dhammaantiinba ila soo dhaweysaan Safwan Halaac the one and only Safwan walaalo iska dhawahay walaal aad baan kaaga mahad celiyay walaalo inaan markaan text message ku soo diray caawa thank you walaalo caawa guest may noqon thank you walaalo inta ay ka badan ba waad u qalantaa subeer walaalkay iga weyn aad baan ku tixgeliyaa thank you walaalo waxaan aad baan u salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ku jirta Instagram-kaaga caawin aad baan u salaamayaa barnaamijka Suuda Socdi waan la socday waraysiga qaabka u qaadaysan waan la socday su'aalaha iga khafiifiya iga khafiifiya waan heshiinayo su'aasha mid baan siyaada inta kale Safwana waxaan rabaa inaan su'aasha ugu horeeya aan ka bilaabo waxa weeye xaafadee baa ku dhalatay iyo magacaaga saddexan walaal subeer Safwan Halaac Safwan Halaac magac iyo Halaac suu ku baxay raganimo walaal horta magacaygu waa Safwan Xasan aabahay baa Halaac la oran jiray Allah yarxama aabahay inta 2 2 uu dhintay Halaacna isaga la oran jiray magacan marka aniga ina Halaac laakiin anigu Safwan Halaac mi ayay noqotay ha marka waxaan ku dhashay Berbera xaafadda Hargeysa ku soo koray laakiin way xaafadda ma Hargeysa ku soo kortay حواله reer xawaadle dhammaantiiba xagga su'aasha labaad waxa weeye anigu dee maadaama aan private now ku aqaano maasha Allah fanaaniinteenii hore laxamadoodii waa haysaa kii sameeyey muusiga qofkii tumay midhihii oo waxaan ogaa fanaaniin badan oo WhatsApp-ka midhaha maca ka caawisay ma waxa weligeed aad jecleed baa yani inaad taariikhdii fankeena suugaanta aad baratid maxaa kugu wacan inaad maanta fanaan kasta hadda la tirtantid taariikhdii fanka waa haysaa Safwan dabcan walaalo horta waxaan waa iska waa u dhalasho waxaan oran karaa in qofku intuu yar yahay horta aabana waqtigu dhalinyarta ha sideedan oo kale wuxuu ahaa Allah salaam Ahmed ragii fanka Soomaaliyeed aasaasay buu ahaa oo wuxuu ku soo kordhiyay aabo codka la yiraahdo raaxeeyay isaga ku soo kordhiyay fanka marka kulli waxaan u arkaa inuu qaab hidda oo kale anigana ii galay oo aan hidaysanayo adigu aabahay iyo maaragtay karta oo ku soo gurigiina of course dabcan ha fanaanka ama taageertido asoorin jirtay intana fanaan noqon kaasoo kala raba inaan noqdo ama dhanka stage-ka ha noqoto ama dhanka codka ha noqoto ama fanaan miyuu jiray ku diin jirtay ama model aha walaalha uu jiray subeero waxaan aad u jeclaa Allah yarxamar raxiimiin Umar Dhuulacali Umar Dhuulacali baan aad u jeclaa fankiisa wallahi wayna yartay subeero hees Umar Dhuula qaadoonan garanaynin waayo ilaa markaan yaraa ilaa maanta waan dhageysan jiray waan dhageystaa heesaha Umar Dhuula aad baan u jeclahay dhammaan hodan iyo waan isnaqaanaa aad baan u salaamayaa carruurtiisii Umar Dhuula Allah yarxamar raxiimiin waa bil Ramadaan Ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo amiin amiin ka Umar Dhuulaan walaal su'aashaydii saddexaad hablaha inan haddii aad iskuursanaysaan ama aad shukaansanaysid maxaa ka eegaysaa qaar baa waxay yidhahdaan waxaan ka eegaa anu indhaheeda waxaan ka eegaa afka dibnaheeda dabadeeda adigu saddex wax ila intaasoo kunka qof aynuugu jiraa barigu waa hable warun quruxdeeda soo maha ama dabeecado saddex wax haddii aan ku aado Safwan dabeecado horta subeero qof dabeecad wanaagsan qof necib ma jiro wata koobaad qof dabeecad wanaagsan qof necib ma jiro qofka dabeecad wanaagsan yahay qof kasta wuu jeclaanaya laakiin inan dabeecadda halka inoo qurux haday noqoto way inantu waa inay san dheer yeelataa oo indho waaweyn ay yeelataa oo waxaan hayaa inantu waa inay san dheer ahaataa oo indho waaweyn
ya masha Allah oo aanay gaabnayn aanay dheerayn dhexdhexaad iska tahay medium ha medium de jirkeeguna waa jiri wanaagsan iska noqdaa yaani buurnaan yaani dhubnaana nin kasta intaas u jecel nin kasta intaas u jecel intaas u jecel waa inantu waa inan sandar oo ka hayna aanay dheeraan aanay gaabnaan iyo indo waanu ka hayna way waa maqlasan ladies waa inaan ku raaciyaa taa markaa ma single baa tahay mise relationship baa ku jirtaa se waaye waa su'aal adag taasi suuqan caadiga xidhasaaye way wal maadaama reer Sweden tahay may wallahi may single baan ahay relationship na malihi inaan nalama sheekaysto umana soo jeeda hadda waqtigan relationship your future way way dhanka kubadda team keebaa taageertaa ama aad xiisaysaa inaad daawatid marka ciyaarayaan wax kubadda dhaafta ma daawadaba totally way sports haddaan saa ku weydiin ma daawadaba wallahi ma sports oo dhan free teedkaaga ama free timekaaga maxaad jeceshahay inaad samaysid waxaan iska daawadaa filimada waxaan aflaantan jecelay filimada actionka ee Mareykanka iyo filimada Hindiga baan daawadaa waliba af Soomaaliga oo Yacko ku jiro waliba Yacko halka haduu iga maqlay aad baan salaamay oo mar labaad aan salaamo oo ka salaamay waliba meel Yacko film uu ku jiro daawan u fiiri Yacko shanas meesina Yacko kun iyo 200 oo qof almost safano hambaliyo saaxiib aad baan salaamayaa dhamaan wallahi waxaan su'aashi mataan way ready mutahay aad mataano soo daa way fanaanka ugu jeceshahay fanaanka ugu nacabtahay waf cumru lagu sheega fanaanka ugu nacabtahay way amid يعني مجرد سؤال عادي والله لكن يو شخصي أنا نعبي أديدكم من ولا ورمضان ودي إلهي نيو يركيا وليد قف أن نعبي أديدكم من قف واسكو كعي كرنا وصلين كرتان واسكو لعي كرتان لكن وليد دايركت قف أن نعبهم قرني ونعبي قفها ما قرني ما هي سؤال شيء يقول سفانو سؤال كلنا هذين إليك سؤال يقصوا سؤال ولا ما يقولي أي متان ودي لسه عرتي هذه لسه عرتي والله wax plan hadda in kasto de waa tan lockdown waa covid laakiin heeso soo ciida inuu talagalnay suweero wallahi horta waa run horta qorshe adag baan galay imika sanadkan waxaan intaas oo fanka uga maqnaa inuu aamusnaa waxaan sameeyay waxaan ku jiray dadaal oo fankii waad la socotaa in nolosha isbedeshay shirkad baan imika aan xiriir la yeeshay si aan xuquuqda rightskayga u helo YouTube channel oo de funky hadii kale waa de intaas de walaal guriga laga dhisanaya ma hadii kale moog marka imika waxaan soo jeestay inaan qaybtaas haga horta waxaan aad ugu salaamaya halkan saaxiibkay Cabdiraxmaan oo aad iga caawiyay iyo adiga labadiinaba aad baan idinku mahad celinayaa saaxiibkay Cabdiraxmaan kulay inuu daawanayaan jecelay ku jira Cabdiraxmaan Mano Gob Films Finance Cabdiraxmaan Axmed Yuusuf oo aad halka iga caawiyay oo haday YouTube channel noqoto haday Spotify noqoto haday noqoto wax walba hawshaas oo dhan gacanta igu qabtay waxaana soo wadaa ciida ama ana gariiri ama YouTube ka gariiri de ama ana gariiri ama YouTube ka gariiri anuguna waan aaminsanahay waa ogtahay big asxaabtinimo marka laga reebo inaan taageero buuxa ku ahay waa ogtahay taa oo fan aan ku ahay saaxiib waxaan rabnaa inaan aad iyo aad u mahad celino Safwan Halaac waana ku maasantay waqtigaaga walaalo lofty Safwan Halaac waa Instagram-kiisa originalka qaariyad dad badan baa isticmaala magaciisa xaggaasa ka helaysan dhammaantiinba hadduu eeba ka dhigo ما شاء الله صفان thank you متان والله aad ما تجيبنا هيساس لو كان هيسا يغير لكن ابراها ما هي وهبلها هبلها ده war ku tagi kari way odaygu waa way ku jeceli ya walaal aad baan labadii salaamay dhamaan bulshooyintana aad baan salaamay taageerayaashaada iyo kuweygaba weydinka waana maasantii walaal qayb sida wanaagsan idiga cusubta suweer thank you very much ada ma hadda iska leh thank you sir what a beautiful
human being yeah ما شاء الله صفوان aad ayaan uga mahad celinay sida sharafta iyo qiimaha leh maanta markaan u diray ku walaalo martimaan rabaa inay noqotid diyaar buu soo qoray wallahi wax kale imu soo qorin su'aalaha bay weydiinaysa way jiraan fanaaniin iyo siyaasiyiin iyo Allahumma salli ala Muhammad wariyaal inamada sportiska ciyaara inuu inta shanta su'aalood aan dadka weydiiyo caadi ahaanta cid kasta aan weydiiyo 99% waxaan su'aalo hanagaadina balnosi sheeg marka Safwan beautiful wallahi xagan waxaan kale aan arkaa